maanta ay taariikhdu tahay 3 bishii 8aad 2018 kulankeenu wuxuu daaran yahay ama uu khuseeyaa furitaanka MCH-ka deegaanka Carraweyn furitaanka MCH-ka deegaanka Carraweyn ayuu kulankeenu khuseeyaa waxaan u mahad celinaynaa odayaasha deegaanka hooyooyinka dhalinyarada bahda waxbarashada culimada iyo dhammaan dadka deegaanka oo u mahad celinaynaa mahadcelinta kadib waxaan iyaga u mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay oo waqtiga ku bixiyay in MCH-kani uu furmo furitaanka MCH-kana waxa iska kaashaday bulshada deegaanka ayaa iska kaashaday oo contribution inta ururiyaan furay waxaana MCH-ka la soo gaarsiiyay dawo hal tan ah meelahaas ilaa hal tan oo dhameystiran waxa kale oo la soo gaarsiiyay taangiga biyaha sariirihii ku dhalmada kii delivery-ga iyo kii beeshanka qalabkii asaasiga ahaa ee delivery kit-ka ahaa ama HP-ga ama blood pressure-ka ama kii sonkorta ama waxa soo dhan qalabkii lagu cabirayay oo xarun caafimaad asaaska oo ahaa ayaa la keenay alxamdulillah ilaahay ma hadda iska leh ma hadda labaadna waxa leh dadka barnaamijka ka soo shaqeeyay marka aad iyo aad bay runtii u mahadsan waxaan u mahad celinaynaa dadka tayada soo galiyay ee daawooyinka sariiraha alaabta noo keenay annagu ayaan mahad u celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa kaakicinta ama tilmaanta dhalinyarada intay isxilqaantay bulshada ka soo qayb gashay inay magaaladeeda tayayso annana waxaanu codsanaynaa hay'adaha dawladda federaalka qurba joogta taageero inayna siiyaan caafimaad baanu ka codsanaynaa iyo shaqaale ay noo diiwaangeliyaan mahad labaad meesha hadda aanu joognaa waa deegaankii Carraweyn waa degmada Carraweyn MCH-keedii oo maanta 3 bishii July 2018
saddexdii bishii August 2018 la furay waxaanu u mahadcelinaynaa dhalinyarada reer Laascaanood oo faamiliga reer Carraweyna degan oo soo abaabushay maskaxdeeda iyo maalkeedii iyo muruqeedii intaba israacisay inay dhaqaajiyaan MCH-kan oo horey u dhisnaa aan shaqayn jirin waxaanu kaloo mahadcelinaynaa dhisitaankii MCH-kan ciddii ka qayb gashay ee soo abaabushay iyo wixii dhisay iyo wixii maskax iyo muruqba gelisayna iyagana waa mahadcelinaynaa waxaanu ka codsanaynaa gobolka Cayn iyo gobolka Sool wasaaradooda caafimaadka ee ka howlgala inay naga caawiyaan MCH-kan aanu furnay maanta ee aanu ku furnay maalka yaga iyo maskaxyada aanu ku furnay aan meelnaba ka diiwaan gashanayn inay maaragtay naga caawiyaan oo noo diiwaan geliyaan joogta deegaanka hawsha maanta la dhaqaajiyay inay iyaguna wixii karaamkooda wuxuu u baahan yahay geed buu u baahan yahay waa laba qolo wuxuu u baahan yahay in la kordhiyo u baahan yahay waxa weeye adduunku waa ayuuto wax qabso wax kugu daree inay iyaga laftoodu wixii karaamkooda ay na soo raaciyaan haddan ilaahba iska leh waxaan u mahadcelinayaa labaad dadka noo keenay hawlahan noo abaabulay ee maskaxdooda ku abaabulay ee waliba da'yarta maxaan ilaahay way mahadsan yihiin aad iyo aad bay mahadsan yihiin marka labaad waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha iyaga noo hayay guriga faamiliga marka xigtana waxaan u mahadcelinaynaa waxa la wixii waxna taro oo dhan way magaalo cusub baanu nahay dadku waa iska hanti yaraaday waxa la wixii waxna taro oo mahadcelinaynaa marka kale waxa weeye MCH-kan maanta la furay waa si odayaashu sheegeen waa cusub yahay wixii nala rasmi garayn lahaa ama hay'ad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama ha noqoto qurba joogteeda ehelka wiilal iyo gabdhaba waxaanu ka rabnaa gacan saar inay noo kordhiyaan guryaha inay noo kordhiyaan shaqaalaha dumarka jooga Carraweyn ta dhiig baxda looma helo dawo tii maxaan idhaahayay foolata waxde kalkaa looma helo ilmaha yar waa ka daali qofka nabar gaadha sida deynta la sii sidoo dhiig baxaya waxa weeye hawlaha ee dhakhtar la'aantu hawlaha noogu fara badan bay insha Allah inuu noo hagaagana ilaahay baan ka rajaynayaa anu qofkan rabaan ka hadlo waxa weeye haddaan reer Carraweyn degannahay meel haddii dad bil aadam ku nool yahay waxa laga maarmaana arrimo leeyahdo waxa weeye arrimo bulshada oo asaasiya oo aan la'aantu la noolan karayn Carraweyn haddaan reer Carraweyn joogno arrimaha bulshadu aad iyo aad bay ugu dayacan yihiin wax badan baa ka dayacan waxa dayacan oo aan shaqaynayn iskoolkii oo waxa weeye laba qol ka dhisan tahay oo aan shaqaynayn waxa weeye qaybta caafimaadka oo MCH kaliya hadda furan yahay oo hadda la furay oo hore u shaqayn qaybta biyaha aan laba haynin wax badan baa waxa weeye naga dayacan marka cid kasto ay qusayn karto ama qusayso ama hay'adaha haato ama waxa weeye wasaaradaha deegaamada gobolada cid kasto ay waxa weeye hawsheedu waxa weeye gaari karta ama naga caawin karta inay hawshaas naga soo caawiyaan oo wax nagala qabtaan tan waxa weeye MCH-ku haddii la furay oo waxa weeye la dhaqaajiyay iskama shaqayn karo waxyaalo wuxuu u baahan yahay asaasiyad qofka shaqaynaya ee joogaya ee hawsha wadaya waxa weeye dadka u khidmaynaya iyo cid kasto maaragtay hawsha ka qayb qaadanayso joogtaa laasim waxa inay waxa weeye ay meel ay ku tiirsadaan helaan ama bulshada ku tiirsadeen ama waxa weeye hay'adaha ku tiirsadeen ama cid qurba joog kale meel qofku waxa weeye filantri qofku inta ku shaqayn kara waa iska yarta marka waxaan codsanaynaa ama waxa weeye wasaaradaha maxaan sheegay ama sida wasaaradda Laascaanood oo kale wasaaradda caafimaadka kuwa buuhoodle deegaamada waxaan ku codsanaynaa inay naga caawiyaan waxa la yiraahdo qaybta caafimaadka khaasatan tan hadda ka hadlayna barnaamijkeeda maanta qalabkii looga baanaa hooyadii dhallaanka keentay iyaanu reer Laascaanood ayaan u mahadnaqaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan kaloo halkan uga mahadnaqaynaa ninkii isbitaalkan gacanta ku hayay ama daartan gacanta ku hayay oo ilaalin jiray muddada dheer isagoo aan mushaar lahayn
ku ilaalin jiray xilqaankiisa iyo dadnimadiisa maanta isagoo nabad qaba dhismihiisa 3-4 sano kadib loogu yimid ninkaasna waanu mahadnaqaynaa aad iyo aad u mahadsan yahay intaa ka bacdi waxaan bulshada reer Carraweyn maanta dee loo furay MCHkii xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waa wanaag weyn way baa u soo siyaaday nasiib bay u heleen dhul badan iyaga la mid ah nasiib u lahayn marka reer Carraweyn waa inay isbitaalkan ama MCHkan hooyada iyo dhallaanka waa inay sida sharciyeynku soo yahay waa inay ula macaamilaan shaqaalaha waa inay xaq dhowraan waa inay dawada maaragtay qaabka loogu talagalay u isticmaalaan waa inay dumarka muraya ama dumarka umushooda ay dhowdayaan ay la xiriirsiiyaan waa inay ciddi kala wareegay dadka maanta u furay ee tababarka siina waa inay u diyaar garoobaan oo ay reer Carraweyn xil saaraan waa in reer Carraweyn isbitaalkan loo furay maanta inuu dib u xubno bay la karjeenaya taasaan reer Carraweyn soo jeedin lahaa in isbitaalkan mar dambe oo ka xidhmid in idinku aad gacan mar hadii la idin furay dawadana la idin keenay inaad dhaqaajisaan halka wax hadda laga bilaabo ka dhaqaajisaan reer Carraweyn baa xilka saaran yahay reer Carraweyn intaas soo jeedin lahaa waxaan codsanaynaa haddaba reer Carraweyn wasaaradda caafimaadka ee gobolada ka jira degmada Buuhoodle la socdo horeeyaan qurba joogta deegaanka u dhalatay waxaan ka codsanaynaa in isbitaalka kan qabyada nala dhamaystiraan waa 2 qol iyo 2 suuli qeyrkii geelilkii albaabkii shaqaalihii dadkii ka shaqayn lahayd sabab buuxda lagu ogaan lahaa la shaqaalaysiyo waxaan codsanaynaa maamulada gobolada ka jira iyo wasaaradda caafimaadka iyo qurba joogta deegaanadan u dhalatay iyo dadka kale ee wanaagsan ee sabaha jecel inay soo caawiyaan MCHkan oo dawadiisa iyo shaqaalihiisa ay gacan soo caawiyaan nala dhamaystiraan intaasaan ilaahay yaan codsanaynaa waa bulsho kasta waxay haddaan dadkooda wax u qaban ama iyada bulshadaas ay wax qabsan waxa ma qabsan karto waxa maanta aan markhaati ka nahay dad deegaankan u dhasho dhalinyaro inay soo caawiyaan oo wax ka qabteen idinka reer Carraweyn baaqiga dabada iska raaciya dadka idinka maqan ehelkiina aan u qeyla dhaansada iyo wadamada gacanta ku hayaan waa ina warka waan gaarsiinaynaa insha Allah MCHkan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid buuxiyo baahida dadkan halkan uu qabo dumarka iyo carruurta ay ka yihiin uu buuxiyo meel kastoo dadku nool yahaana waxaad ogaataan caafimaadku iyo xubinta koowaad ama wadnaha koowaad ama baqal ama lambarkooda uu ka yahay gabar foolanaysa ama qof dhig ku booday ama qof macaan ku booday ama qof nabar ku dhacay dee waa meesha degdeg ah loogu talagalay markiiba maaragtay laga caawiyo laga isbitaal lagu gudbiyo marka arrintan waa arrin idin muhiima waa shaqo muhiima magaalada lafteeda waxaan odhan lahaa inuu qayb ka qaadano isbitaalka